sanadkii 2017 gobol ku yaala waqooyiga Norway saacaduna ahayd 1 saac subaxnimo nin lagu magacaabo Marcus ayaa laga waayay gurigiisa albaabka hore ee guriga wuu furnaa gaarigiisu wuxuu yaalay guriga hortiisa dukumeentiyadii shaqada ee Marcus waxay saarnaayeen miiska qolka fadhiga halka telefoonkiisana uu meesha yaalay ma jirin wax raad ah oo muujinaya jab ama dagaal balse dhammaan calaamaduhu waxay tilmaamayeen in Marcus uusan si caadi ah uga bixin guriga subaxaas waa idin salaami daawadayaal magacaygu waa Xalima Daawud inta gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii dhahdo channelka like-tana ii saarto channelkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon dambiyada qarsoon iyo xogaha caalamka ha inoo bilaabo markan sheekadeena maanta subax qabo oo kamid ah maalmaha gu'a saacada ayaa ku dhaweyd 1 saac subaxnimo Marcus sida caadiga wuxuu u diyaar garoobi jiray shaqada si degdeg ah balse subaxaasi wuxuu ahaa mid aamusan oo degdeg ku bixin wax yar kadib Eva oo ahayd xaaska Marcus waxay maqashay albaabka hore oo xirmaya taas ma ahayn wax la yaab leh sababtoo ah Marcus mar walba ayuu ka horbixi jiray laakiin saacada 2 saac ee bar markay dhaaftay Marcus wali shaqada kama soo wicin mana uusan dirin fariintii caadiga ahayd oo u diri jiray marka uu gaaro xafiiska Eva waxay isku dayday inay telefoonkiisa wacdo balse telefoonkiisa uu dansanaa markay qolka fadhiga gashay waxay aragtay mobilkii Marcus oo miiska saaran furayaasha gaarigana ay yaalaan halkaas ayayna ka bilowday cabsi booliiska ayayna wargelisay booliiska markii ay yimaadeen guriga wax jab ah lagama helin gaarigii Marcus wuu yaalay dukumeentiyada shaqada ayaana miiska saarnaa balse hal qalab oo muhiim ah ayaa ka maqnaa subaxaasi waxaa si rasmi ah loo diiwaan geliyay in Marcus la waayay kiiska waxaa loo gudbiyay waaxda dambiyada culus waxaana loo xil saaray dambi baare Daniya talaabadiisii ugu horeysay waxay ahayd inuu fahmo maalmaha ka horeeya maqnaanshaha Marcus wareysiga xaaskiisa wuxuu muujiyay in Marcus oo maalmahaasi ahaa mid walwal badan isla markaana helayay telefoon qarsoodi ah mar uu Eva u sheegay in cadaadis shaqo la saaray balse uusan faahfaahin waxay ahaayeen cadaadiskaasi shaqo dambi baare Daniya wuxuu la hadlay dariska qaar kamid ah waxa ayna sheegeen in subaxdii arkay Marcus asagoo la hadlayo in aysan hore u arkin gaariga madowna uu taagnaa wadada taasi waxay ka dhigtay maqnaanshaha mid aan caadi ahayn talaabada xigta waxay noqotay xafiiska Marcus Lina oo la shaqeyn jirtay Marcus waxay sheegtay in muran xoogan uu dhex maray Marcus iyo maamulaha waaxda Eric toddobaad ka hor Eric markii la wareystay wuxuu sheegay in murankaasi uu ahaa mid shaqo oo caadi ah balse dukumeentiyada ayaa muujinayay in heshiis lacageed oo weyn oo hakad galay heshiiskaasi wuxuu u baahnaa saxiixa Marcus kaasoo la sheegay inuu diiday sabab sharci darteed halkaas waxaa lagu ogaaday in Marcus uu diiday saxiixa heshiis lacageed oo weyn heshiiskaasi wuxuu u baahnaa ogolaanshihiisa si uu u dhaqan galo dukumeentiyada la helay waxay muujinayeen in heshiiskaasi uu lahaa qodobo sharci daro ah Marcus wuxuu go'aansaday inuusan saxiixin isla markaana uu arintaasi ka hadlo intii baaritaanka socday magac cusub ayaa si rasmi ah u galay liiska shakiga markii la baaray xogta telefoonada Daniya wuxuu ogaaday in Marcus oo xiriir joogto ah la lahaa ganacsade lagu magacaabo Thomas telefoonada labadooda u dhaxeeyay ayaa ahaa habeenkii ka horeeyay ee maqnaanshaha dabagal ayaa lagu sameeyay Thomas wuxuuna muujiyay in Thomas uu bedelay jadwalkiisii caadiga tan iyo maalintii uu Marcus la waayay wuxuu ka baxay magaalada 2 maalmood kadib dhacdada asaga oo aan ogeysin laamaha amniga safarkiisa waxaa lagu ogaaday kaarkiisa bangiga iyo kaamirooyinka wadooyinka waana loo wacay wareysiga koowaad ee Thomas wuxuu ahaa mid kooban kadib wareysiga wuxuu sheegay in xiriirkooda Marcus uu ku ekaa ganacsi isla markaana kulankoodii ugu dambeeyay uu ahaa toddobaad ka hor maqnaanshaha markii dambi baare Daniya weydiiyay sababta wicitaanada badan ee habeenkaasi dhacay Thomas wuxuu sheegay inay ka hadleen arrimo degdeg ah balse uusan xasuusan markii wareysiga sii socday hadalka Thomas wuxuu noqday mid iskhilaafaya waqtiga uu sheegay inuusan Marcus la joogin ayaa ka hor imaanaya xogta telefoonada iyo kaamirooyinka Daniya ma uusan ku degdegin inuu ku cadaadiyo wuxuu ogolaaday Thomas inuu hadalkiisa sii wato asagoo si taxaddar leh u qoraya qalalaadka hadalkiisa wareysiga labaad Thomas waxaa la hor keenay cadeemo kooban sawir gaariga madow oo u dhow guriga Marcus subaxii la waayay codkiisu wuu isbedelay wuxuuna qirtay inuu Marcus la kulmay balse ku adkaystay in kulankaasi uu ahaa mid gaaban oo aan wax dhibaato ah lahayn isbedelka hadalkaas ayaana sii xoojisay shakiga dhanka kale ninkii laga shakisanaa Eric ayaa dhankiisa la wareystay
hadaladiisu waxay ahaayeen kuwo xisaabsan. dambi baare Daniel wuxuu go'aansaday in marka hore la eego dhaqdhaqaaqiisa shaqo maalintii Marcos la waayay. diiwaanada shaqada ayaana muujinaya in Eric uu ka baxay xafiiska goor hore asagoo uu sheegayay in arrin degdeg ah jirto. kaamirooyinka goobta shaqada waxay muujinayeen inuu la hadlay Marcos daqiiqado ka hor intuusan bixin. hadalkaasi kuma sheegin wareysiga la qaaday. wareysiga Eric wuxuu ku bilaabmay su'aalo guud. wuxuu sheegay in muranka shaqada uu ahaa mid caadi ah isla markaana Marcos uusan khatar ku jirin. markii Daniel weydiiyay sababtu uu qarinayay kulankaasi gaaban, Eric wuxuu sheegay inuusan u arkeynin mid muhiim ah. markii wareysiga sii dheeraaday, Daniel wuxuu soo bandhigay dukumiintiyadii muujinaya in Eric uu cadaadis ku saaray Marcos si uu u saxiixo heshiis muran dhaliyay. Eric hadaladiisu way hakaday, wuxuuna qirtay in cadaadis jiray balse ku doodayay in ujeedku ahaa badbaadinta shirkadda. wareysiga labaad ee Eric wuxuu ahaa mid ka adag. su'aalaha waxa ay noqdeen kuwo toos ah, jawiguna wuu adkaaday. Eric wuxuu mar kale bedelay hadalkiisa asagoona qirtay in Marcos uu diiday heshiiska si cad isla markaana ay jireen dood kulul maalintaas. markii baaritaanka labada nin la isku geeyay, Daniel wuxuu arkay isku xirnaan oo ka dhaxeeya labada nin. Thomas wuxuu lahaa dano dhaqaale toos ah, Ericna wuxuu lahaa awood shaqo. wicitaano iyo kulamo qarsoodi ah ayaana isku xiray labadooda maalmo ka hor maqnaanshaha. waxay muujiyeen hal shay, mid walba wuxuu qarinayay wax ka badan inta uu sheegay. hadallada iskhilaafsan, waqtiga aan isqaban iyo dhaqdhaqaaqyada qarsoon ayaana noqday saldhigga talaabooyinka xiga ee baaritaanka. kadib markii la ogaaday xiriirka qarsoon ee u dhexeeya Thomas iyo Eric, dambi baare Daniel wuxuu qaaday talaabo aan degdeg ahayn balse go'aan leh in cadeymaha la xoojiyo ka hor inta aan la qaadin talaabo sharci. amarka koowaad wuxuu ahaa in dib loo eego dhammaan wicitaanada, fariimaha iyo dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee labadooda, gaar ahaan 72 saacadood ee ka horeysay maqnaanshaha Marcos. dabagalka bangiga wuxuu muujiyay lacag si degdeg ah loogu wareejiyay shirkad yar oo Thomas la xiriirtay isla maalintii Marcos la waayay. lacagtaas ujeedkeeda lama caddeyn. isla waqtigaas, diiwaanada shirkadda ee Eric maamulayay waxa ay ka muuqday dukumiintiyo la bedelay. taariikhaha iyo saxiixyada qaar waa la saxay. kadib dhacdada, Daniel wuxuu amray in la sameeyo qariiradkiis si loo arko halka ay iska galaan waqtiga, goobta iyo wareysigooda. qariiradaasi ayaana muujisay hal meel oo muhiim ah, kulan kooban oo lagu qabtay banaanka magaalada saacad ka hor intii Marcos guriga laga waynin. Thomas ayaa loo yeeray wareysiga saddexaad. markaas jawigu uu ka duunaa kii hore. su'aalaha waxay ahaayeen kuwo si taxaddar loo habeeyay. su'aal walba waxaa la socotay caddeyn. markii la tusay diiwaanka lacagta iyo sawirada kaamirooyinka wadooyinka, Thomas wuxuu isku dayay inuu yareeyo doodiisa isdifaacinta asagoo oo sheegaya in kulanku ahaa kulan ganacsi oo fashilmay. wareysigaasi dhexdiisa, dambi baare Daniel wuxuu ku celceliyay hal su'aal oo fudud: maxaa ka dhigay kulankaasi mid degdeg ah? jawaabta Thomas mar walba way isbedelaysay. isla maalintaasi, Eric ayaa isna loo yeeray. markii la hordhigay dukumiintiyada la bedbedelay iyo waqtiga kulanka banaanka magaalada, Eric wuu aamusay. kadib wuxuu qirtay inuu ogaa kulanka balse uu sheegay inuusan filayn wax dhibaato ah. qirashadiisa waxay jebisay hadaladii hore uu ku sheegay inuusan waxba ogeyn. kadib wareysigaasi, xeer ilaaliyaasha ayaa la wadaagay natiijada. waxaa la go'aamiyay in Thomas iyo Eric lagu qaado eed la xiriirta qorsheen, qarin xaqiiqo iyo ku lug lahaanshaha dhacdo horseedee maqnaanshaha Marcos. eedeyntu waxa ahayd mid degdeg ah, waxay ku dhisneyd isku darka cadeymaha maaliyadeed, dukumiintiyada la bedelay iyo hadallo iskhilaafsan. markii la qabtay labadooda, ma aysan bixin qirasho buuxdo. si kastaba, cadeymaha la aruuriyo ayaana ku filnaa in maxkamadda loo gudbiyo. maxkamadda dhexdeeda, wareysyadii hore ayaa loo bedelay markhaati rasmi ah. su'aalaha difaaca waxay isku dayeen inay muujiyaan in arrintu ahayd muran shaqo oo kaliya, balse cadeymaha waqtiga iyo lacagta ayaana jebisay doodaas. ugu dambeyn, maxkamaddu waxay go'aamisay in Thomas iyo Eric ay si toos ah ugu lug lahaayeen qorshe horseeday maqnaanshaha Marcos, ayna si ula kac ah u qariyeen xaqiiqooyin muhiim ah. kadib dhacdada, Thomas waxaa lagu xukumay 25 sano oo xarig ah. maxkamadduna waxay ku qanacday inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qorshaha, isla markaana uu ka faa'iideystay maqnaanshaha Marcos dhinaca ganacsiga.
sidoo kale irig waxaa lagu xukumay 15 sano xariga iyo in laga mamnuuco inuu mar dambe qabto xil maamul ama mid ganacsi oo la xiriira shirkado waaweyn. haddii inta nala soo gaartay daawadayaal aad ayaan kaga mahadcelinayaa laagda muuqaalka sheerna dheh si saaxiibo badan u gaarno qaybta hoose ee faalada fikirkaaga nagula wadaag saaxiibada cusubna soo dhawaada ayaa idin leeyahay mar kale mininkiina leeyahay soo dhawaada.